waxaan rabaa inaan hal mas'alo isku baraarujino. mas'aladaas waxa weeye waa iscafinta muslimiintu ay iscafiyaan faa'iidada ay leedahay. haddii laba qof ay wax dhex marto hadday iscafiyaan maxay tahay faa'iidada ay gaarayaan? ilaahay subxaanahu wa ta'ala qur'aanka kariimka wuxuu ku yiri: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إلهي وحولاي هاي مسهنا حسنة أو وحا وناكسنة إيو حميد مسهنا وحا حن إيو وحا وناكسنة مسهنو يري إلهي سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن. هدي قف وحمان كو جيستو oo uu dib ku geysto ama uu ku caayo ama uu waxay rabaan ha noqdaan waxaad jeclaan ku geysto, ilaahay wuxuu leeyahay qofkaas ugu jawaab oo falcelintaadu ha noqoto wax wanaagsan. haddaad marka qofkii ku xumeeyay aad wax fiican ku qaabishid maxaa imaanaya? ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo caday waxa imaanaya: fa idha alladhi baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyyun xamiim. ilaahay wuxuu leeyahay markii qofkii xumaanta ku geystay aad jawaabtii aad uga dhigtid wanaag ee aadan xumaan kale adna u geysan, ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu qofkii adiga iyo asaga cadaawadu ay idin dhex taalay ee aad isnibcaydeen ee aad isdagaalamayseen wuxuu noqonayaa sidii saaxiibkaaga qaaliga ah oo noqonaya, qofka kuugu dhow dadku noqonaya. maxaa yeelay qofkan markaad wanaag la qaabishay asna xumaan uu kugu soo qaabilay, qofku wuu xisaabtamaya in aan colaytan wax ku hayaahay aysa jirin ayuu fahmaya. sifadaas waa sifo aad u qaaliya, yaa la siiya dadka heli kara yaa weeye. ilaahay quraanka noogu cadeey isla aayada ku xigta ilaahay wuxuu leeyahay tilmaantaas qof kasta ma heli karo. tilmaantaas aan soo sheegay cid kasta ma heli karto ilaahay. wama yulaqaaha illa alladhina sabaru. sifadaas lama siiyo oo lama kulmiyo, ilaahay uma hibeeyo dadka saabiriinta ah oo sabray maahan qof kale. qof sabar lamahan qof kale tilmaantaas ma heli karo. wama yulaqaaha illa dhu hadhin azim. waxa kaliyo heli kara tilmaantaas aan soo sheegay ilaahay oo qofkii xumaanta u geystay jawaabta uga dhigi kara wanaag, qof dheef weyn helay oo ilaahay agtiisa wax weyn ka helay oo ilaahay jecel yahay. ilaahay wax weyn qof uu siiyay oo sabar uu siiyay, wanaag uu siiyay, qalbi fiican uu siiyay, qofkaas kaliya ayaa maantay tilmaantaas aan siinayo uu yiri ilaahay xaqiisa ka helaya. laakiin inta kale maxay imaanayaan? qofkii dhibka u geystay dib uu sii geysanaya, markaas ayaa bulshadii halkaas ku baaba'aysa. hal tusaale haddaan soo qaadano salafkii suubana imaamkii weynaa la dhihi jiray Ali bin Zayn al-Abidin oo uu dhalay Xasan bin Ali bin Abi Talib, oo Xasan bin Abi Talibna Fatima Zahra ay dhashay oo nabiga gabadhiisii iyo Ali bin Abi Talib iska dhaleen. nabigu awow uu u noqday taabici wuxuu ahaa weyn kun ragco uu maalinkii tuka jiray salaad ah. markaas waxa loo bixiyay saaxibu sajaada, ninkii maaragtay ama as-sajaad sujuuda badna oo sujuuda badna ama sijaayada lagu tukanaya ninkii iska haysto salaada kaliya ku jiray. ninkaas wuxuu ahaa waxa loo bixiyay caabidiinta quruxdooda. nin ayaa maalmaha kamid ah lagu soo diray, waxa la yiri ninkaas bal ka soo xanaaji. ninka ayaa inta u yimid wuxuu yiri anta Ali Zaynul Abidin, adiga miyaa ninka la yiraahdo Zaynul Abidin? markaasuu yiri ha aniga la yiraahdaa. nabi maxamed oo bal u fiirso jawaab bixin doona. aniga Zaynul Abidin la igu naynaasaa uu yiri kuwa alla caabudo quruxdooda. markaasuu yiri anta Shaynul Abidin, waxa tahay kuwa alla caabudo foolxumadooda tahay, adigu aan faasiqa tahay, faajira tahay, gaala tahay, nin xun ayaa tahay. markuu ay ku daldalay Ali Zaynul Abidin muxuu ugu jawaab celiyaa? hadda maanta annaga aan nahay waa dil ilahay ninka Soomaan. wuxuu yiri ma dhamaysatay? markaasuu yiri ha. markaasuu yiri dhageyso, anigu bini aadam ah waa gafa Soomaan, inta aad sheegaydid oo dhan waa ka soo qaad. intaas oo ceeb aan anu bini aadam aan baho ceeba ilaahay iga sameey. haddaan raba aan noqdo ka soo qaad. hadda qofka muuminka inuu markasta liidaal rabo dhulka isdhigo uu arkay ilaahay agtiisa inuu wax weyn ka ahayn si ilaahay uu kor ugu qaado. ceebahaad sheegaydid aan leeyahay, laakiin inta ilaahay ka qariyo ceebahayga ha ka badan u yiri. wuxuu yiri aniga waad ii nasiixaysa,
waad ila talisay maadaama aad sheegtay inaan dambiile ahay oo nin xun ahay tala fiican aad isiisay ilaahay aan u toobad keenayaa wax sheego aan ku siiyo maadaama aad si fiican ila talisay ninkii waa yaab waa ooy markii uu ooyay wuxuu yiri raalli ahaw dad ayaa igu soo kaadiro waxay yiraahdeen cali zaynul caabidiin haddaad ka soo caraysiidid lacagtaasan ku siinayna 1 dirham ku siinayna marka dadkaas igu soo kaadiray raalli ahaw yiri waxaana ogaadu yiri inaad rasuulka waladkiisii tahay awlaadi rasuulka inaad tahan ogaado qof kale sifadaas ma heli kara saa sabarka qaaliga markaasuu yiri ma waxay dambiyay ku galsheen si ay 1 dirham ku siiyaan maxaa noogu sheegi weyda mar hore aniga ku sii lahaa oo dambi ku galina hala siiyo yiri hadda 1 dirham wal u fiirsa dhaqankaas wanaagsan ee muuminiintu marka iscafiyaan ka imaanaya Allahu akbar waxaan rabaa dhankaas waa iscafiski qalbiga oo xumil la iskugu hayo maxaa ka imaan kara haddii qalbiga xumaan la iskugu hayo maxaa ka dhala kara tan kala ka dhala karta rabna ina ogaano nabigeena subhanahu tilmaam alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri nabigeena alayhi salatu wasalaam tuftahu abwaabul jannati yawmul khamis wa yawmul ithnain albaabada jannada waa la furaa maalinka isniinta ah iyo maalinka khamiista ah markaasa ilaahay wuxuu u dhaafaa qof kasta muumin ah oo aan gaal ahayn gaal ma ahan oo qofka ilaahay u sharig yeelo gaal ma ahan cid kasta oo muumina ilaahay waa u dhaafaa dunuubtooda maalinka khamiista iyo maalinka isniinta ah illa rajulayn kanat baynahuma shahna markii laga reebo laba qof oo qalbiga xume iskugu haya xaqdi iskugu haya lama ogola qof muumin oo walaalka ina qalbiga wax ugu haydid oo ka jeesatid wax ka badan 3 maalmood labadaas wuxuu yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam xadiiska sahih muslimka ayaga looma dhaafo marba qalbiga haday xumaan iskugu hayaan colaad iyo dagaal iskugu hayaan oo waxyaala adduunyo ay ku dirireen looma dhaafo maxaa la leeyahay yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam anziru hadayn hatta yastaliha anziru hadayn hatta yastaliha anziru hadayn hatta yastaliha ukaadsha labadan qof ha u dhaafinina malaa'ikta la leeyahay dunuubtooda ha tirinina ila ay ka heshiyaan okaadiya ila ay ka heshiyaan okaadiya ila ay ka heshiyaan 3 jeer nabiga kaleey salaatu wasalaam malaa'ikta waxa la leeyahay dadkaas dunuubtooda yaan la tirin ila ay ka heshiyaan marka hadiiba dambigeeniba aan la dhaafin illa aan iscafino oo qalbiga isu dahirno oo xumidii aan halman oo qofka kale wanaag uu ku abaal mariyo waa inaan iscafina midda kale xumida iyo xasadka qalbiga la iskugu qabtaahay ee qofka kale walaalkiisa la dagaalamay diintay xeerta salka ay diinta ka goysaa tin hadii la jaro waxba ka hara laakiin tin hadii la xiro waxba kama haraan wuxuu leeyahay nabigeena subhanahu alayhi salatu wasalaam dabba ilaykum daa'ul umam qablakum waxa idin soo gurguurtay waxa idin soo gargaa waxa idin soo gaaray ummadihii hore cudurkoodii yahuud iyo nasaar cudurkoodii ayaa idin soo gaaru yiri nabigeena alayhi salatu wasalaam maxay tahay al hasad wal baghdha yiri nabigu alayhi salatu wasalaam xaasidnimadkii iyo isu carooshadii xaqdigii qalbiga wax la isku hayo taas ayaa idin soo gurguurata oo idin soo gaartay oo idin gashay oo yahuud iyo nasaar laga keenay markaasuu nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam tahliq yiri nabigu alayhi salatu wasalaam arintaas oo qalbiga xumil isku haya in la isxasdaahay waxbay xeerta وحالقة الحالقة وير النبي عليه الصلاة والسلام وحبي حيريسا محي حيرتا مركز وير النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول تحلق الشعر أنا أقول ملهي تنتي حيرتا بل تحلق الدين دين تي حيريسا قفك ضد ضدك مؤمنين تا ولا لهيسا مركز تقلبك وحمان أقوها أيوه دين تيسي أيا سلك كجو أيسا دين الآن وكسر دعيا دين تيسي سلك هذا مرة دوير النبي واحيرتا شريط أي سبعين شريط ده تنتي وارث مركز لا تروح حراية لكن دين تادي أبر نقولنا بابا أيسا ما واحد مركز أضل قاعدة كرنا نبي مركز عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا إلهي بنقول أرتاي الجنة ما جلسان إلا أدخميسان ولا تؤمنوا حتى تحابوا من أدخميسان إلهي إلى أد استجعلاتان ما إذا شجع وحدي أد سميسان أد استجعلانيسان مركز النبي عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم تحاببتم والسلام تدحدي النفذية أو السلامة سلام محايا للنبات قال يكركك ها أهاتا ولالك على هذا مركا قف آتير النبات قال يكركك ها أهاتا حميب وما بهي كرتد ولالك مؤمنة مركا سو النبي عليه الصلاة والسلام وحده جيري ورنيكي هبل لده جيري هكالي دنينا أو يري إلهي وعردك يا شرف كيغا وحان أعفيه قفكي إعايودا وأعفيه إلهي marka qof walaalka wax yar oo adduunyo idan dhaxmareen ka war hadaa tira qofkaas isma arkayno cadawaanahay kan wuxuu iga dhacay kan saaru yiri waa in la iscafiya malada xuna waa qatar
ilaahay wuxuu leeyahay inna bacda dhanni ithmun malada qaarkeed waa dembi oo qofka kale uu hadba wax ku maleeyo waxyaala aan jirin uu ku maleeyo waa dembi ha la iska ilaaliyo maxaa yeelay ilaahay wuxuu sheegay waa run nabiguna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiis bukhaari iyaakum wadhanna fa inna dhanna akdhabu alxadiis war iska ilaaliya malada xun iska ilaaliya maxaa yeelay maladu waa sheekatan ugu been badan wax aad ogeynaa qof ku malaynaysa holeedahay saasuu u jeedaa saasuu ahaa maalinka qiyaama lagu leeyahay markhaati miyaad u haysataa kaan markaasaad ku ceeboobaysaa ilaahay hortiisa ilaahay ha naga dhigo kuwii iscafiya isjeclaada oo sifaadka wanaagsan qaata ilaahay nagama dhigo kuwii isnaca oo isxasda oo qalbiga xumo isku haya oo diintooda baabi'iya waxa weeye waa erayo qaaliya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisu ay noo soo hadiyeeyeen waa gift iyo hadiyad weyn ilaahay kuwii ka faa'iidaysta allaha naga dhigo sidaas ayaana maaragtay masaladaas aan uga hadlaynaa